soo dhawaada asxaabta. Imaaraadku waxa uu leeyahay taariikh u qaas ah waxaana la deganaa kumanaan sano iyadoo daaha laga qaaday shidaalka wadankan sanadii 1960kii. Dubai waxa ay noqotay mid caan ku ah ganacsiga caalamka oo waxa ku yaala ganacsiyo caalami ah. Haddaba waxaan idiin soo gudbinaynaa qaar ka mid ah dadka ugu taajirsan Imaaraadka. Saif Al Gurer waa ganacsade ka soo jeeda dalka isku tagga Imaaraadka Carabta ahna mid ka mid ah 10 nin ee ugu taajirsan Imaaraadkana deganaa magaalada Dubai. Waa 96 jir, ganacsade ahaa noloshiisa inta badan hantidiisana waxaa lagu qiyaasaa 1.9 bilyan oo dollar. Shirkadiisa waa mid ka mid ah kuwa ugu waaweyn Dubai, taasoo qabata shaqooyin badan oo kala duwan. Shirkadiisa waxa ay ka shaqeysaa waxyaabaha kiimikada, biraha iyo dalaalida, badeecadaha suuqyada iyo kuwo kale oo badan. Sidoo kale waxa uu leeyahay 2 mool oo waaweyn kuwaasi oo ku yaala Dubai iyo shirkado kale oo yaryar. Ninkan waxa uu qaatay shahaadada koowaad ee jaamacadda isagoo bartay cilmiga xisaabinta ganacsiga, waxaana ka helay faa'iidooyin badan isagoo la wadaagay cilmigii oo bartay qoyskiisa. Ninkan waxa uu aabba u yahay 6 caruur ah, dhammaantoodna waa kuwa ka shaqeeya maamulidda ganacsigiisa. Hussein Sajwani waa mid ka mid ah maalqabeennada Imaaraadka Carabta. Waxa uu leeyahay shirkad weyn oo ka shaqeysa iibinta iyo dhisidda dhulka oo ka howlgasha Bariga Dhexe iyo meelo badan oo ka mid ah dunida. Hussein waa gudoomiyaha shirkadda, waxa uu aasaasay sanadii 2002. Isaga ayaana iska leh fikradda ganacsigiisa. Waalidkiis waxay ahaayeen kuwa leh hal abuur ganacsi kuna guuleystay ganacsigooda. Isaga aabihiis waxa uu ahaa ganacsade ka keeni jiray badeecada dalka China. Ninkan markiisii hore waxa uu helay waxbarasho bilaash ah, laakiin sanadkii ugu horeeyay ayuu ka tegay isagoo u aaday Mareykanka jaamacad, halkaas oo uu ku bartay cilmiga injineeriyadda iyo warshadaha. Kadib waxbarashadiisii, shaqadii ugu horeysay waxa uu ka helay warshadda gaaska ee Abu Dhabi. Kadibna waxa uu bilaabay ganacsi uu leeyahay isagoo noqday maalqabeen leh shirkado ganacsi oo waaweyn. Waxa uu leeyahay dhismayaal badan oo aan caadi ahayn kuwaasi oo ku yaala qaar ka mid ah dunida sida London, Dubai, Paris iyo meelo kale. Waxayna hantidiisu gaaraysaa 2.1 bilyan oo dollar. Waana ninka 9aad ee ugu taajirsan Imaaraadka. Abdullah Fotin waa maalqabeen u dhashay Imaaraadka Carabta, kaas oo ah ganacsade ku soo koray Dubai. Waxa uu malaayiin dollar ka sameeyay iibinta baabuurta shirkadda Toyota, taas oo uu magaceeda ka soo qaatay. Waxaa kaloo ka mid ah ganacsiyada kale oo uu magacooda ka soo qaatay Zara, IKEA iyo kuwo kale. Waxa kaloo uu leeyahay moolal ku yaala Dubai kuwaasi oo kala ah Dubai Festival City iyo Qahira Festival City. Waana mid ganacsigiisa ku guuleystay isagoo gaarsiiyay wadamada qaar ganacsigiisa sida Kenya, Japan iyo Morocco. Run ahaantii ganacsigiisa waxa uu noqday mid uu ka sameeyo faa'iido badan, waxayna gaaraysaa hantidiisa 2.5 bilyan oo dollar, isaga oo noqday ninka 8aad ee ugu taajirsan Dubai. Sanadii 2010 ayuu soo iibsaday markab nooca dalxiiska ah, kaas oo qiimihiisu uu gaaray 150 milyan oo euro, taas oo ah lacag aad u badan. Sidoo kale waxa uu ahaa mid ka ganacsan jiray baabuurta tartamada ciyaaraha iyo kuwa raaxada intaba. Sani Farki waa hantiile ahna maskaxdii ka dambeysay mid ka mid ah waxbarashada iskuulada gaarka loo leeyahay ee ugu weyn adduunka, kaasi oo ay dhigtaan arday da'doodu ay ka yar tahay 12 sano. Iskuulkiisa waxaa dhigta in ka badan 110,000 oo arday, waxaana leeyahay 100 xarumood kuwaasi oo ku kala yaala 10 ka mid ah wadamada adduunka. Ninkan waalidkiisa waxay imaadeen Dubai 1959 iyaga oo raadinaya nolol fiican iyo in ilmahooda magaalada uga helaan waxbarasho. Haatanna waa milkiilaha iskuulada ugu weyn ee gaarka loo leeyahay oo ah mid caalami ah. Waxa uu soo saaray arday gaaraysa oo kala jooga dunida oo dhan. Hadafkiisa ugu weyn waxa uu ahaa qof kasta inuu helo waxbarasho tayo leh. Sidoo kalena waxa uu si weyn u caawin jiray dadka danyarta ah isaga oo ku bixiyay waxbarashada lacag deeq ah oo gaaraysa 30 milyan oo dollar. Ninkan waxa uu degan yahay Dubai, waxayna hantidiisu gaaraysaa 2.6 bilyan oo dollar. waa mid ka mid ah hantiilayaasha isku tagga Imaaraadka Carabta. Markii ugu horeysay waxa uu dalka yimid 1973 xilligaasi oo uusan horumar ka jirin Abu Dhabi. Waxa uu bilaabay kadib markii uu safar ku tagay halkaasi in uu siiyo adeeg caafimaad dad aad u badan.
oo bukaan ah, waxaana ka go'need in uusan joojin adeegga caafimaad ee uu u sameynayo bulshada gobolka. Wuxuuna halkaasi ka furay xarun caafimaad oo uu ku haminayay. Ninkan ganacsadaha ah waxa uu dhashay Hindiya, isagoo ka sii waday ganacsigiisa halkaas, sameeyana shirkad la yiraahdo Neo Pharma, ahaydna markii ugu horeysay ee uu furto shirkad. Sidoo kalena waxa uu sameeyay shirkad lacagta sarifta. Faa'iido badan ayuuna ka helay ganacsigiisa, laakiin hantidiisa ugu badan waxa uu ka helay isbitaalka la yiraahdo NMC, kaasi oo ah isbitaalka ugu weyn isku tagga Imaaraadka Carabta. Wuxuuna ku samaystay meelo badan oo adduunka ah maalgelin. Hantidiisu waxa ay gaaraysaa 2.6 bilyan oo dollar. Sanad kasta waa ay sii kordhaysaa hantidiisa. Isagana ma wada isticmaalo ee waxa uu ku bixiyaa xarumaha caafimaad ee adduunka oo ay ka mid tahay Abu Dhabi iyo xarunta kansarka ee uu gacanta ku hayo ra'iisul wasaaraha Pakistan Imran Khan iyo meelo kale badan. Ravi Balai waa mid ka mid ah hantiilayaasha ka soo jeeda dalka Hindiya ee u tagay ganacsiga Dubai. Waana ninka uu ganacsigiisa uga soo qasaaray wadamada Hindiya iyo Sacuudi Carabiya ka hor inta uusan tagin Dubai. Wuxuuna ka qaatay shahaadada cilmiga maareynta ganacsiga jaamacad ku taala Hindiya. Inta badan waa uu ku guuldareystay ganacsigiisa, laakiin wuxuu aqoon fiican u leeyahay sida loo maamulo ganacsiga. Shirkadiisa waxaa la yiraahdaa RB Group, taas oo ay xarunteedu ku taalo Dubai, waana tan ugu shaqaalaha badan. Waxayna gaarayaan shaqaalaheedu 7,000, isagoona ganacsigiisa ku balaariyay wadamada kale ah Imaaraadka, Qatar iyo Bahrain. Waxayna shirkadiisa ka shaqeysaa dhismayaasha guryaha iyo warshadaha saliidda gaaska. Waxauna wadamo badan ku leeyahay guryo aad qaali u ah. Waxauna gabadhiisa arooskeeda ku qarash gareeyay lacag dhan 7.5 milyan oo dollar, isagoona noqday mid ka mid ah aroosyada ugu qaalisan taariikhda. Ninkan waxay hantidiisu gaaraysaa 3.5 bilyan oo dollar. Abdullah Al Ghurair waa ninka labaad ee ugu taajirsan Dubai. Wuxuuna adeer u yahay 10 nin oo maalqabeena ah. Wuxuuna aasaasay sanadii 1967 bangiga la yiraahdo Mashriq Bank oo ah kan ugu horeeya bangiyada Dubai. Welina waxa uu ka yahay gudoomiyaha, halka wiilkiisana uu ka yahay madaxa fulinta. Wuxuuna leeyahay shirkado badan sida tan iibisa makiinadaha cuntada, tan wax soo saarka xoolaha, hoteelo iyo moolal ku yaala Dubai. Waxayna gaaraysaa hantidiisa 4.8 bilyan oo dollar. Majid Al Futtaim waa ninka ugu taajirsan Dubai. Wuxuuna leeyahay hanti aad u badan. Lacagta ganacsigiisa ka soo xaroota sanadkii waxa ay gaaraysaa 10.6 bilyan oo dollar, isagoo leh ganacsiyo aad u badan sida 12 hotel, 22 mool oo ay ka mid yihiin moolal ku yaala Dubai iyo mid ku yaala Qaahira. Sanadii 2015 ganacsigiisu waxa uu gaaray 13 wadan oo kala duwan. Sidoo kale waxa uu leeyahay meelaha madadaalada lagu sameeyo. Waxa kale oo uu leeyahay markab ku fadhiya lacag gaaraysa 250 milyan. Dhirirkiisuna waxa uu gaarayaa 139 mitir oo ah noocyada dalxiiska. Waad ku mahadsantahay daawashada muuqaalkan. Haddii aad ku cusub tahay channel, subscribe si ay kuu soo gaaraan muuqaalada cusub. Hana hilmaamin inaad la wadaagto asxaabtaada adigoo share garanaya muuqaalkan. Mahadsanidin.